السلام عليكم دمانتين وسلامنتين كسو دوادا فيديوغان او كسابسن ومحي سويتش ومحي راوتر ومحي فايروول سدح داس قلب و نتورك كستو او عصري وككوبن يحي وانا هشيت سويتشنج وانا هشيت راوتنج وانا هشيت فايروولينج marka switchka waxa waaye qaybta ugu horeysa network runtii waa network meesha laga soo galayo gudaha kombiyuutarada waxa ay ku dhagan yihiin oo kombiyuutarka markii lagu taago fiiladaas meesha lagu taagayo waa switch ishak wirelesska access pointiga wirelesska AP ga geedka ahee دربيga ku dhaganay tuurayo maxal dhihi jiray signalka wirelesska oo kombiyuutarada wirelesska ay ku dhagayaan fiilada gadaal kaga dhagan meesha ay ku dhagan tahay waa switch printerka fiilada ka baxdo ee network galays meesha ku dhagan tahay waa switch marka switchka waa meesha laga soo galo network oo ugu horeyso hawsha uu qabto waxa waaye inuu kala hago kombiyuutaradaas iyo printeradaas iyo oona uu kala sooco asaga oo ku kala garanayo MAC addresska sababtoo kombiyuutar kasto wuxuu leeyahay MAC address lagu daabacay network interface cardkana waa meesha uu ku taagan yahay wireka fiilada meesha ku taagan tahay switchkana meesha ay fiilada kaga taagan tahay meeshaasna MAC address ay leedahay marka MAC addressyadaas inuu kala hago waayo hooshiisa VLAN-ka ugu horeeyo VLAN-kana waxa waaye virtual local area network waa network laakiin ku dhex jiro switchkaas gudihiisa marka network ugu horeeyo waa VLAN 1 wuuna ku yimaadaa switch kasta uu ku yimaadaa markaas hadaa rabtid gadaal inaa ka kala socdo kombiyuutar badan haday yaalaan meesha ilaa 100 kombiyuutar camal oo aad rabtid inaa kala googooysido ay tiraahid qaarna waa qaybta xisaabinta qaarna waa qaybta suuqgeynta qaarna waa qaybta baaridda iyo engineeringka hadaa rabtid inaa sidaas u kala socodid markaas waxa abuuraysaa VLAN kale waxa leedahay VLAN 2 waa suuqgeynta VLAN 3 waa xisaabaadka iyo accountingka VLAN 3 waxa waaye engineeringka iyo researchka marka sidaas ay u kala jijibinaysaa switchka marka hawshaas ayuu qabtaa switchka wuxuu ka howlgalaa qaybta labaad ee OSI modelka marka qaybta labaad ee OSI modelka hadaa videoga kale oo aan sameeyay fiirsatay waxa waaye waa data linkiga hawsheeda dhan waxa waaye inay abuurto frameskaas oo ku dhisan MAC addresska marka waxa waaye hadii layer 2 lagu wada hadlaayo qaybta labaad hadii lagu wada hadlaayo addresska wax la isugu hagaajiyo waa routerka waa qalab switchka uu ku dhagan yahay switchka intee fiilo ka soo baxdo bay routerka ku dhagaysaa routerka marka asaga wuxuu ka howlgalaa qaybta saddexaad ilaa qaybta shanaad ee OSI modelka qaybta saddexaad waxa waaye ishak IP addressyada hadaa xasuusatid qaybta afraadna waxa waaye transportka oo macnaha ama TCP ama UDP qaybta shanaadna waxa waaye sessionka hadii TCP ama SIP ama waxyaalahaas la go'aansado in session la abuuro marka routerka wuu hirgelinaa IP addresskii ee wax u socdeen buu soo helayaa wuxuu go'aansanayaa ma TCP ba mise UDP hadii ay TCP tahayna qaybta shanaad buu u gudbayaa sessionkii buu abuurayaa marka hawshaas u qabtaa marka network kasto wuxuu switchka wuxuu leeyahay boqboqyo badan oo interfaces boqboq lagu taagayo fiilada waa interface badan uu leeyahay kombiyuutarada iyo printerada dhan lagu taagayo and then hal wire ka soo baxayo switchka halkaas wire wuxuu ku dhagaa routerka marka switchka VLANadii kala gedisnaa VLAN 1 iyo VLAN 2 iyo VLAN 3
buu IP address kala siisiina marka hadda hal VLAN isticmaalayso waxa la yiraahdaa VLAN-kaas default VLAN waa VLAN-ku ku yimaado switch hal IP address uu leeyahay markaas uma baahnid router runtii waxa kombiyuutarada meeshaas ku dhagan dhan waxay wadaagi karaan halkaas IP address-kaas inay ku hagaajiyaan waxooda laakiin hadday VLAN-yo badan jiraan oo ka badan hal markaas waa in VLAN kasta uu leeyahay IP address maadaama hal VLAN un la siin kara IP address-na waa in VLAN-nadaas kaleeto IP address-yadooda laga helaa routerka markii kala hagaaya arrimahaas oo traffickaas kala habeenaya markaas haddii accountingka qaybta xisaabaadka ee rabto inay la hadasho qaybta suuqgeynta markaas routerka dhahayo qaybta suuqgeynta address-keeda waa saas markaasna switch-ku ku celinayaa intuu MAC address-ki siiyo markaasna MAC address-ki ay lagu hagaayaa fariintaas laakiin haddii fariinta ay ka soo baxday switch-ka ee routerka u timid laakiin ay rabto inay banaanka aado iyo internetka markaas firewall-ka ay aadaysaa firewall-ka markaas waxa uu kala soocayaa network-gaas uu company-ga asaga leeyahay iyo network-yada banaanka مثال qofka hadii uu internet ka soo gashto isheeg hormuud ama company kale wire-kaas ka imaanayo company internetka badana waa ina firewall ku taagtid hadaa company kala tahay firewall-kaas marka asaga markii kala soocayo wixii banaanka u socdana banaanka u diraayo wixii banaanka ka yimidna hubinayo dhahayo ma lagu ogol yahay inaa network soo gashid مثال dadka hackerska firewall-ka waaye kan celinayo oo joojinayo oo markasta dhahayo ma soo gali kartaan network sababtoo meeshan firewall-ka wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo access control list insha Allah video kalaan kaga hadli doonaa laakiin waxa waaye isheeg macnaha isbaara camal taalo control taalo firewall-ka marka wixii banaanka imaanay uu hubinaa wuxuu leeyahay inay gudaha gashaan ma lagu ogolay wixii banaanka u socdana uu hubinaa wuxuu leeyahay ma lagu ogolay inay banaanka aadid asagoo isticmaalayo access control listigaas isheeg marka firewall-ka hooshiisa wakaas router-kana hooshiisa wakaasa isheeg hadda rabno marka examples oo firewall iyo hadda rabno examples oo ah router iyo switch waxaan aadaynaa website-ka cisco.com markaasna waxaa leedahay isheeg aan soo geliyo window-ga meeshaan markaas menu networking routers so routerska waa kuwana waxay u kala baxaan branch waa laanta مثال hadii company dahabshiil xarunta ugu weyn waxay ku taalaa Hargeysa laakiin xaafado badan oo Hargeysa kamida wuxuu ku leeyahay laamahaas router yar baa u isticmaalaysaayoo laanta loogu talagalay one aggregation waxa waaye hadii machine la hadlayso iyo internetka waxa ku dhagan wide area network ama xarunta weyn routerka yaala ee la hadlaya laamaha kale edge waxa waaye kambaniyasha waaweyn isheeg hadda routerkan la yiraahdo ASR 9000 waa router loo isticmaalo in kambaniyasha waaweyn ee isku xiraan kambaniyasha kale مثال Google data center-keeda iyo maxaa la jira Facebook iyo YouTube iyo routeradan waaweyn ayaa leeyahay ASR 9000 iyo GSR 12000 iyo service provider hadda tahay waa adiga hadii aad internet u geliso kambaniyasha kale markaas routeradan waaweyn ay isticmaalaysaayoo waa u jeedaa ASR 9K uu ku jira soo ma jeedid xataa service provider industrial waa kuwa warshadaha virtual waa router aan la taaban karin
ku dhex nool machine kale oo virtual machine video kalaan kaga hadlay virtual machine-ka videogaas fiir sida ay u shaqeyso small business routers kana waa ganacsiyaasha yar routerada ay isticmaalaan misaal haddii maqaayad yar oo ama bibita yar oo ku taala meel oo laakiin wireless laho customerska intay kafeygooda iska cabayaan wirelesska iska isticmaalayaan markaas oo small businesska adiga 100 user camal ilaa 100 customers ah inay isticmaalayaan ama care switches exampleska ayagana waxa waaye waa kuwana switches ayagana waa kuwana noocyada switchingka waa sidoo kale waa local area switch access waa meesha laga soo gal network soo mid inay boqboqyo badan leeyihiin waxaas dhan computer ku taagtaagaysa kuwan waa ayagana kuwa iska yaryaro maxal dhihi jiray adiga hadaa rabtid inay dhowr shay ku dhagaan sidii bibitada aan ku sheegayay hadii bibitadaas wireless leeda wirelesska access dhowr access point ay ku taagaysa meeshan kaliya and then dhowrkaas wirelesska customerska dhan waxay isticmaalayaan dhowrkaas access pointiga core distribution kuwan waa kuwa high speed oo waaweyn ayagana waxa loogu talagalay building ay ku jirto adiga ilaa isheega ilaa 200 300 400 oo qof oo computer iyo wireless iyo waxyaalahaas leh iyo ka badan because interface kasto kuwan kamida wuxuu isticmaalayaa adiga 10 gig per second geeda ah lagu taagi karaa kuwana waa data centerka waa hadda meesha wax kasto ay ku soo shubmayaan oo isha kambaniyasha waa weyn meesha qalabkooda dhan yaalaan oo emailkooda iyo accountingkooda iyo maxal dhihi jiray wax kasta ay u baahan yihiin marka waa ayagana switch waaweyn Nexus 9000 Nexus 7000 iyo Nexus 3000 marka switches waa kuwaasa hadii aan fiirino firewalladani maxal dhihi jiray firewallada ayaga waa under security isha networking security next generation firewalls so kuwana firewallska ayagana siday u kala baxaan ayagana waa sidoo kale waxay ku xiran tahay size soo ma jeedid kuwan yar hadda xaafada kuwa yaalo waa noocan waa 5500 iska waa wax iska yar oo firewall throughput waa ujeedaa 256 ilaa 1750 megabits per second u diri karaa threat inspection macnaha wuxuu hubin karaa waxyaalaha isku dayayo inay network soo jabsadaan ilaa markii uu wax hubinayo soo ma jeed wuu ka islowsan yahay markuusan waxba hubinayn sababtoo ah waa control camal controlka markii jidka isheeg hadii gaari kasta la istaajinayo la fiirinayo waqti dheer ay qaadanay laakiin haduu iska furan yahay oraday ku soconay marka wakaasa kuwaana waa xogaa ayagana kambaniyasha yar waaweyn ilaa 500 600 qof kuwaana waa ilaa 1000 qof kuwaana dee waxa waaye company dhan oo ilaa 10 qof building 10,000 oo qof building ay ku jirto waxaan rajeynayaa inaa videogan ka faa'iideysatay waana ku mahadsantahay inaa fiirsatay wassalaamu calaykum